السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal inta islaam ah oo umad rasuulka oo uu soo gaaro fiidiyowgaas aan soo diray ha gaarsiiyo meesha uu ku socdo iyo dadka wixii garanaya ninka sheekadaas qisadaas aan hadda ka warrami doono ay maaragtay haysato. walaalayaal maanta waxay ahayd khamiis habeennimadii baan seexday soon baan iska niyeystay intaan 5 saac habeennimo maxay ahayd biyo iyo wax cabay soon baan iska niyeystay habeen barkii baan soo booday waxaan mooday in salaadii subax iga tagtay. haddaan soo booday mobilkii baan kula lalay waxaan fiiriyay waqtigii salaada mise salaadii ma dhawo hurdadii baan ku noqday. hurdadii markaan adigu in 1 saac hurday ayaa waxa la soo hordhigay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax laga magan galay adoomahana ruux kasto ilaahay abuurtay uu sugayo waqtigii qiyaame oo ummadu ban cidla ah oo aan geed lahayn oo guri lahayn oo ood lahayn oo mara lahayn dhooban tahay inay wax ka arag iyo inaan af lagu sheegi karin. markaan dadkii arkay waan naxay meel ishaydu qabato ayaa waxa soo ordayay nin kafnan oo meeshuu sidaa cagu dhigaaba 10,000 dadka badne ka soo baxayaan dhulka. ninkaas waa cararaya waa ordaya waxaan ku leeyahay sida diyaaradda oo kale u lalaya cagaha labada cagood meeshuu saaraba waxa kor uga soo baxaya oo dhulka ka soo boodaya dad aan ishayda iyo dhagtayda midna qiyaasi karin. ninkii sidii u soo ordayay baa nin wuxuu yiri ninka ma aragtaan saaneen haa aniguna waa naxsanahay oo waa baqsanahay meesha la tuban yahay meesha imtixaankeeda meesha inkaarteeda waxa weeye ummadu meeshay dhooban tahay meeshay qaaqaawan tahay ummad qaawan iyo wax dhar qaba iyo wax booyaya iyo wax ninka halka ordaya ma aragtaa buu yiri haa waa arka wuxuu yiri ninkaas aad u jeedid meeshu cagta dhigaba 1,000 qof ka soo baxayso waa camalkiisi adduunka uu ka hayay. markaasaan inta naxay waxaan ku yiri war camalku hayay muxuu ahaa ninku wuxuu yiri intaasoo ummadii isaga ceyrsanaysa 40 sano camalkiisi weeye buu yiri intaasi xaqay ku leedahay bay ka doonaysaa. dabada waxa soo yaacaya dad inta ishaydu aniga qabato aad yaabaysi intay tira leegihiin meel aliya meeshu cagta dhigana waxa ka soo boodaya dad ka tira badan dadka isaga ceyrsanaya. markaasaan waxay inna lillahi wa inna ilaahi raaji'un inna lillahi wa inna ilaahi raaji'un war ninku dadka muxuu ka cunay war ninku dadka muxuu ka cunay suuye ninkii oo ma garanaysa adigu intuu iga naxsaysaan ma ya garan mayo ninku kafantii uu qabriga kala soo baxay buu la ordayay. wuxuu yiri ninkaasi waa madaxweynihii hore Soomaaliland 40 sano camalkiisii buu wataa saak kuwa badan oo sida meesha uu ku sii ordayaan wuxuu yiri waa gaalkacayo halka uu ku sii rooraya ma aragtaa waa gaalkacayo buu yiri meesha uu ku ordaya saakana waka camalkiisii cagta meeshuu saaraba 1,000 qof baa ka soo boodayso isaga xaq ku leh oo ceyrsanaysa. markaasaan waxaan ku yiri bismillaahir rahmaanir rahiim oo maxaa gaalkacayo uu ka doonsuyan samigiisa jooga bi samigiis ayaa jooga yaa sida isagoo loo ceyrsanaya buu soo baxayaa buu yiri. marka dadka waxaan ka codsanayaa intii islaama oo ummadii rasuulka oo islaama oo ummadii rasuulka fiidiyowga ninka inay ninka gaarsiiso waa maxamuud maxamed Siilaayi mudna inaan Siilaayan raahno waayo inuu raali ka niyo anagu in kale ta ma naqaan ilaahu naga masaabax rabbigayo. waxaan ka codsanayaa ninkaasi naftu inta ay ku jirto banaanka inta isa soo taago yaa oo waxa uu sita dhigo inuu dadka ay cafiya yiraahdo inuu ummadda ay cafiya yiraahdo 18 gobol oo Soomaaliyeed intuu tago ummadda ay cafiya inuu yiraahdo. waxaan idinka codsanayaa fiidiyowga inaad dadka gaarsiisaan ninkaas dhib baa haysta kaligiina maaha ummad badan bay haysataa inta islaam ummadda rasuulka ay fiidiyowga ninka ha gaarsiiso oo ha ku ifad garayso intuu dunida saaran yahay oo naftu ku jirto ummadda ay cafiya ha yiraahdee yaa ummad dhibaata haysata ummadaan xala arkay oo ordaysa
وقبرك كسو بوديسة وننكا لبدي سعقود روريسة إلهي وأديقا ربي وقرنا يميشات كوهيسو ربي قيو kuwa badan baan alla midaysay kaligiis maaha ummadda islaamkaana waxaan ka codsanayaa qof waliba qofku wuxuu qabay inuu iska cafiyo ruux kasta naftu intay ku jirto fiiftu oo aan qabriga la dhigin oo aan dhulka iyo cirkuba isaga ku gariirin oo qiyaamihiisu yeerin waxaan idinka codsanayaa qof kasta inuu qofka kala cafiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh